qaybtan hore waxaan ugu dambeysay markuu idhahayo walaalkay abaa kuma maqlo ee markii sariirta aan ka dareemay qof nuuxnuuxsanayay. waa qeylnii ilaa aan guriga ka baxayay. markii dambe jaarkayga ayaan guriga ku qarqaraacay. waxaan ku yiraahday fadlan moobeel ma ii dhiibi kartaa, qof muhiim ayaa ka wacanaya moobeelkee. wuxuu yiraahday hoo qaado. dhaqsadii waxaan wacay walaalkay. waxaa dareemay inuu hurdaysan yahay. waxaan dareemay inuu aniga dartay hurdada iga soo kacay. wuxuu yiraahday yaa weeye. waxaan ku yiri waa Sucaad. Sucaad xilligaa maxaa la soo jeedaa, maxaa kugu dhacay, lambarka iga soo wacsanaya iskala Sucaad. ma waala tahay, hadda ayaa kula soo hadlayay daqiiqado ka hor. Sucaad ani maqribadii ayaa kula soo hadlay, markale kuma soo hadlin. Maxamed waa kugu ciyaariyaa idhe, waayo daqiiqado ka hor ayaa ku soo wacay. maxaa kugu dhacay Sucaad, anigu kulama ciyaarayo. uma jawaabin. waa ku dimiyay moobeelka. waan soo baxay. gurigayga ayaa imaaday, laakiin waxaan arkay wax iga yaabiyay. markaan guriga soo galay waxaan arkay dhulkii dhan oo wada dhiig ah. waan soo cararay. waxaa u imaaday jaarkayga. waxaan ku dhahay gurigoo dhan waa wada dhiig, kaala isoo raac. markaa guriga imaado waxa iga yaabiyay arkay waxay ahayd gurigoo dhan wuxuu ahaa wada caadi, dhiigna kuma oolin. isagoo ii jawaabin ayuu iga tegay. asagoo caraysan oo xanaaqsan ayuu ibaaka xoog u soo xirtay gurigiisa. kursigaan fadhiistay anoo baqaya. waxaa akhrisanayay aayatul kursi. aniga gurigaa ma degnaan karo, waayo waxaan rabaa inaan kiraysto hoteel. ninkayga markuu imaado inaan u sheega ayaa rabaa, laakiin ninkayga muu irumaysanayo. laakiin inaan hoteel aniga ayaa dega ayaa rabaa. qolkayga ayaan galay. waxaan soo diyaarsaday dharkayga. marka aan dharkayga soo diyaarsaday waa ka soo baxay qolkayga. markaas dhahay bax. anoo sii socda waxaa is xiray ibaabka. xoog ayuu isku xiray ibaabkii. boorsada ayaan dhulka dhigtay. waxaan isku dayay inaan ibaabka furo. waa furi waaye ka bacdi. marka ayaan dambe intaa xanaaqay ayaa isku dayay inaan furo. waa furi waaye. qaylo aad u dheer ayaa maqlayay. qaylada dhagaha ayaan ka qabsaday, waayo qaylada mehena qaylo loo adkeysan karay. cabaar ka mid ah qaylada way joogsatay. aniguna waxaa ka foqay dhagahaygii. aniga aad ayaa u ooyay. maantana ayaa meesha iska fadhiyay. aad ayaa u murugaysnaa. mar ka mid ah ibaabka ayaan lasoo qaraacay. ibaabka waxaa soo qaraacay ninkaygii Axmed. markaa ibaabka ka fur waxaan ku yiraahday Axmed ha iga tagin, waxyaalo qariib ah ayaa guriga ka dhacay. bar dambe Axmed ha iga tagin. wuxuu ku dhahay waxba ma jiraan Sucaad. wax way jiraan. waxaan arkay gurigoo dhiig dhulka ku yaalo. waxaan arkay ibaabka waa lagu soo xiray. intuu qosay wuxuu ku dhahay intaa kaligaa joogta ayaa filmaan horor daawatay. anigu waxaan u fiiday si cara leh. waxaa ogahay inuu irumaysanaynin asaga. aniga ma rabo inaan gurigaas sii joogo. Axmed wuxuu yiraahday intaa gurigaan joogo haddii wax dhacaan waa balan inaan gurigaan kaa bedela Sucaaday. Axmed intuu joogo waxba ma dhacaan guriga. waxaa dareemay markuu ninkayga joogo inaysan waxba dhicin. maalin kastuu ila joogaa waxbana dhacaan. wallaahi intuu asaga ila joogo waxba guriga kama dhex dhacaan. asaga markuu guriga ka maqan yahay oo adeega doonayo waxaa maqlaa hadallo iyo sharqamo. markasta aan ku dhaho Axmed aan guri kale aadagno wuuna igu qeylinayaa, wuuna iga diidayaa. wuxuuna igu dhahayaa qof waalan ayaa tahay. aniga wawalka ayaa igu batay. waxaan rabaa inaan la qabsado waxaan guriga ka dhacayaa, laakiin nasiib xumo waxaa soo dhawaatay ninkayga goortuu bixi lahaa. hab ayuu i siiyey. anigana markaas waa ooyayay. Sucaad waxbaha ooyin, waa balan markaas soo noqdo waa inaa gurigaan ka guurnaa. haddii wax dhacaana isoo wac. markaa ibaabka xiray waxaa maqlay wax igu soo ordaya aniga. wixii meesha aan sharqata ka maqlay waxaa arkay intuu isoo istaagay dhahay waan ku xiisay. aniga miirkii ayaa iga dhacay. bartaas ayaan ku suuxay. asxaab markaa bartaa ku suuxay. waa maxay waxyaalahan dhacaya, aniga maxaa ku suuxay ii sheega. aniga waxaas dhan waxaa nugu sheegi doonaa qaybta soo socota ee Part 3 ee la socda. maca salaama.